السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب جنال كيغا اسماء عبسلان. هداي تاي داودا مركي اوريسي ادن سو بوقوتو بليز سبسكرايب كنوصار لايك تنوصار هداد هوري نولا جوكتينا لايك تنقود وريقلي وادكو ماسنتاي واد كميد اهيد اصحاب تايدا ان اصحابي سيدا نوغا براتين عاو waxa idin wada qiso inaba caadi ahayn oo muruga ah oo wax badan laga qaadanayo qisadan maaragta ayaa waxay ka dhacday oo ku dhacday gabar maqrabiyad ah oo la dhaho Amal Al-Adrasi haddaad jeceshahay inaad qisada nala dhageysatid oo waqti aan nala qaadatid please koobkaaga qaxwada ah soo dhaweyso asxaabey qisadan ayaa waxay ku dhacday gabar maqrabiyad ah oo Amal la yiraahdo Amal waxay ahayd qisadeeda sidaan familka Amal waxay ahaayeen معنيه هويدد iyo aabaheed ayaa laga hadlayaa familkeeda famil reer baadiye ah oo reer iska reer miyi ah ay ahaayeen oo miyiga iska jooga waxa dhacday inuu odayga aabaheeda dhihi jiray aniga xaaskiisa ku leeyahay aniga ma rabo inaan gabar dhalo gabdhuhu sidoodaba waa micnii ceeb weeye oo ceeb wax ahayn ma keenan mana doonayo inaan gabar dhalo waxaan doonayaa inaan wiil ii dhashid adigu sidii ayay maaragtaa maamadu waxay tiri insha Allah waan ku ballan qaadayaa inaan wiil ku dhalo kulli waa iska jahli iyo jaahilnimo adigu sidii ayaa waxa dhacday familkan inay u haajiraan wadankaas reer galbeedka wadan kamid ah oo Faransa inay u haajireen adigu reerkii waxa dhacday in maaragtaa maamadu ay gaadhay waqtigii dhalmada ilmihii ugu horeysay waxaa dhacday inay maaragtaa maamadu xilligii ay foosh qabatay oo isbitaalka la geeyay in maaragtaa inay dhashay gabar odaygii ma u imaan ma soo booqan oo wuu xanaaqay oo wuxuu dhahay aawe balanta iga qaaday oo ahayd inaa wiil i dhalaysid anigu maaragtaa ma jecli gabdhaha ma doonay inaa gabar dhalo adigu ma soo dhaweyn gabadhiisa odagaas haddana waxaa dhacday mar labaad waa lagu imtixaamayaa inuu maaragtaa haddana ii sheeg gabar labaad loo dhalay adigu odagii sidii ayuu haddana oo kale ayuu u xanaaqay oo yiri anu gabar ma doonayo gabar aniga noloshayda boos kuma lahan aabahan waxaa dhacday haddana in maaragtaa gabar saddexaad ay dhalato gabadha saddexaad oo ah gabadha ay qisada ku socoto Amal ayaa waxa baa dhalatay after Amal micnii Amal kadib waxa dhashay laba wiil bay maamadu dhashay oo la kala dhaho Farid iyo Mustafa waxa dhacday in maaragtaa ay gabadhan Amal oo maaragtaa labada wiil ka weyneed iyo laba gabdhood oo ka waaweyn ayaa jiray in Amal ay aragtay odagu inuu maaragtaa wiilasha aad u jecel yahay oo wiilasha uu dhaqkolkooliyo gabdhahan uu yeeso ayay aragtay odagu gabadh yarta aad Amal ah u murugootay way weydiisay dhowr jeer aaba maxaa dhacay oo maxaa maalmaha kamid ah wayba la fariisatay xitaa aabo maxaa kosgareynaya inaa maaragtaa wiilashaada jeceshahay wiilashaada kolkoolinaysid annagana maaragtaa aad rabin oo xitaa dhankeena aad soo fiirinayn wuxuu dhahay anigu idima jecli mana jecli gabdhaha sideedaba idin gabdhaha daad yihiin waxaaba nali abuuray nimankiina inaa wax dhashaan bas ma tihiin sanad micnihii ma noqon kartaan tir oo lagu tirsan yahay oo waxtar dad waxtar leh oo sanad ah dad oo micnihii lagu tirsan yahay oo familka wax u tara ma noqon kartaan adkiya ma tihiin micnihii dad caqli badan ma tihiin ayuu dhahay odagii gabadhii aad ayay u niyad jabtay waxay go'aan ku gaartay ilmo yarna way iska ahayd inay maaragtaa sida Farid iyo Mustafa oo libisato timihii ayay iska jirtay shaati surweel ayay xiratay wiilasha si boodboodaan geedaha u furfuulaan oo meelaha u soo ciyaaraan ayay u soo ciyaartay say tira aabba see kuula ekaa hadeer soo yiraahday waxaa tahay gabar wali micnihii timihii ayay iska jirtay waa iska ilmo timihii ayay iska jirtay shaati iyo surweel oo walaalkeed Farid kan ku xiga Farid ayaa la dhahaa ayay soo xiratay muxuu ahaa Farid bay la ciyaartay sidii maaragtaa oo ciyaalka wiilasha u ciyaareen ayay kubadda la ciyaartay la boodbooday markaas wuxuu ku yiri maxaa ii aragtaa bay tiri aabo si wuxuu yiri waxaan ku arkaa inaad tahay gabar still inaad gabar tahay
gabar baana tahay kumana jeclaan doono adiga walaalahana wax iska kaaya galay oo maaragta ma jiro adiga gabdhaha walaalahaaya labada gabdhood oo walaalahaaya adugu maalmaha ka mid ah ayaa waxay arkeen TV-ga ayay daawanayeen gabdhahan waxay arkeen gabar ayaa soo gashay oo fanaanad ah waxay ka sheekeynaysay qisadeeda waxay tiri waxaan ahaa gabar aabahay ima jeclayn mana ku faraxsanayn inay gabar u dhalato waxaa dhacday bay tiri inaa maaragta aan gurigeena ka cararo oo maaragta magaalo weyn soo galo oo maaragta dad caawiye helo oo maaragta fanaanad noqday ilaa aan heerkan maanta aan gaaray oo dadka dhan ay saa ii raadiyaan inay xataa sawir ay la galaan oo qofka caanka aan noqday ilaa aan gaaray ay qisadeeda bay gabadhii ka sheekeynaysay fanaanada ahayd waxaa dhacday in maaragta amaal waxay ahayd 3 gabdhood walaalaha ayada maaragta ugu fuurbeysayneed oo maaragta ugu maaragta shidnayd oo de ugu caqli badnayd oo markaas aad maskaxdeeda uga shaqaysiinaysay waxay tiri amaal gabdhii walaalaheeda waxay ku tiri see u aragtiin arrintan ka warrama TV-ga aan ka daawanayno annagana dhibkaas kale ayaan haysta waxay tiri gabadhii ka weyneyd ayada ka kor uga sii weyneyd Xakiima ayaa waxay tiri aniga waxay tiri haddaan hadda fakano oo aan aadno Paris ayagu magaalo kale joogaan oo hadda magaceeda maaragta iga dhumay bay deganaayeen oo gobol ah oo Paris ahayn markaasi waxay tiri Paris haddaan tagna ka warrama oo waliba Xakiima dhahaysa oo waliba aniga bay tiri codkayga aad ayuu u fiican yahay oo aniga fanaanad noqdo oo gabadha kale ka weyn walaashay ahna ay noqoto raaqisa micnihii ay iyadana ciyaartay taqaana ay ciyaarto sidee u aragtiin amaaltay qasashay iyada og in maaragta Xakiima ay cod lahayn ay ku haysto ayay waxay tiri diyaar waaye waana sameynaynaa waana baxaynaa Paris baana aadaynaa aduu waxaa dhacday 3 gabdhood inay mar habeenada ka mid ah fakadeen oo ay baxeen oo reerku aan ogeyn baxeen Fariid inuu arkay aduu Fariid way ka dhunteen waa wiilka yarkaayo walaalkood ahaa oo ka yaraa oo amaal ku xigay way ka dhunteen way fakadeen 3 gabdhood bas ayay raaceen aduu waxaa dhacday baskii ayagoo filaya dee nolol cusub inay ka bilaabaan iyo rajo fiican kala Paris magaalada caasimadda ee dalkaas France waxaa dhacday baskii inuu ku dajiyay magaalo u dhow meel u dhow oo duur ah oo France mixnihii Paris u dhow inuu ku dajiyo waxaa dhacday ayagoo iska socdo wadadii inay arkeen gaari baa arkay gaarigaas waxaa saarnaa askar oo maaragta dhar cad ah oo aan dharka booliska qabin waxay ku yiraahdeen xagee u socotiin idinkoo waliba gabdho yaryar oo teenager ah xagee u socotiin oo wali aan xilli ay u ismaamuli karo socon karaan meel kasta aadi karin ay tihiin waxay dhaheen waxaan u soconaa way kala hadleen gabadhii ugu weyneed ayaa waxay tiri waxaan u soconaa guriga habriirteen oo halkan ku yaala ayaan soo boqonay tii kala soo booday waxay tiri maya guriga abtigeen ayaan u soconaayo inta ku yaala adoo way kala hadleen askartii way dareentay inay maaragta khaldan yihiin wada si qaldan ku socdaan adugu waa la waday oo dad soo cararay familkooda ka soo cararay inay yihiin waa la dareemay waa la soo waday 3 gabdhood stationka ayaa la keenay adugu waa la baaray waxa laga qaaday ID-yadoodii waa la ogaaday inay yihiin gabdho yaryar oo soo fakaday adugu askarta sid waxay seexiyeen meel bay seexiyeen habeenkii aabahood ayaa subaxiiba soo istaagay oo yimid asagoo iska dhigay oday miskiin ah oo ku haya gabdhahayga aaway oo micnihii jecel iyo kalgacayl hor la tusaaya gabdhihii waa yaabeen saani u fiirsheen waxay dhaheen way isweydiiyeen aaba maxaa ka khaldan wuxuu dhahay gabdhahayga way iga soo lumeen maba oran buu iga soo carareen adugu askartii ayuu si wanaagsan hortooda ugu hadlay wuu soo waday gaari ayuu ku soo qaatay gurigii ayuu ku soo ceshay adugu waxaa dhacday 3 gabdhoodba inuu tuu odayga suun u furto uu qaraacay oo maaragta dilay oo bahdilay oo maaragta aad gabdhihii si cunfi ah oo maaragta adag ula dhaqmay adugu waxaa dhacday markii dambe ii sheeg asxaab raali ahaada xogaa dhunta iga xiran waxaa dhacday
in gabdhihii uu yararkaa uu dilay odagii oo guriga keenay. Adigu bil iyo bar kadib odagii gabdhihii wuxuu sameeyay ra'yi ayuu ula yimid wuuna siray. wuxuu ku dhahay sidee u aragtiin inaan dalxiis idin kaxeeyo oo Morocco ku noqono oo dalxiis idin geeyo oo gabdhaha yararka habartiin dhashay ala soo ciyaartaan oo familkiina soo barataan oo isla markiina aan soo noqono waqti yar oo micni holiday ina u baxno sidee u aragtiin fasax yar. gabdhihii waa iska ilmo yaryar way farxeen waxay dhaheen haa nagxee aabo wuu kaxeeyay wuxuu geeyay meel baadiye ah oo tuulo baadiye ah wuu geeyay oo ay joogto ayadood buu farta ka saaray maamo maskiin ah oo oo ayadooda oo de aad u faqiir u ah oo wax dhaqaale aan haysan ayuu u geeyay. wuxuu ku dhahay waa soo noqonayaa ii sheeg markii hore oo xataa ciyaalka ay joogeen France aad buu dhaqaalaha uu odagu helo ilmihiisa kuma fangareyn jirin oo gabdhihiisa yararka kuma caawin jirin iyo hooyadood aad buu markii hore u silcin jiray carruurta markii xagga xataa France joogeen laakiin de France nolosha aasaasiga ah maysa ka waayi jirin. adigu waxaa dhacday gabdhihii markuu u keenay ayadood baadiye joogta Morocco inuu yiri hay oo uu yiraahdo waa soo noqonayaa waa la soo wacay waxaa micnihi France ayaa laga soo wacay idimo wadi karo idinka waxba khaldamay waan in la xiraabna laga yaabaa markuu wuxuu dhahay waa tagayaa waana soo noqonayaa markaas idin wadaaya arrimaha problem mashakil yar soo xalinaya waa soo noqonayaa. adigu gabdhihii yararka hayay iska dhaheen meeshii ayuu uga dhuuntay cunto fiican ma helaan iyadood waa iska maskiin faqri ah oo wuxuu yiraahdaa say rabeen nolol rafaahiya micnihi ah oo raaxa kumayso nooleyn ciriiri baa gabdhihii badan bay soo food saaray. markii dambe ayaa waxay sameeyeen markii horeba gabadhii ugu weyneyd saddexdan gabdhood walaalaha waa laga tagay oo France odagu uga soo tagay hooyadood ayuu uga soo tagay wuxuu wadaa waa Xakiima iyo Amaal. waxaa dhacday asxaabe codka aad iga xiran raali ahaada marka waxaa dhacday in uu labadii gabdhood ay iyadood la joogtay ay la joogeen 3 sano ay ku qaadatay in iyadood la noolaadaan uusa aabahood soo noqon uusa masruuf u soo diri jirin oo la soo xiriiri jirin gabdhihii yararka baasaboorradii isagaa ka haysta. markii dambe way fakareen waxay dhaheen anaga waa inaan meeshaan noloshan ka tagnaa oo iska cararnaa oo banaanka iska maamadu iyadooda waa qof iska reemi ah oo jahli ayaa jira dabcan waxay dhihaysay war ilaahay yaa igu keena gabdhahan niman iga wata oo culeyskooda iga qaada ayay markasta dhihi jirtay maamadu. gabdhihii waxyaalahaas waa ilmo yaryara niyad jab ayay ku noqotay. adigu waxaa dhacday inay markii dambe ku fakaraan ii sheeg inay fakadaan oo cararaan. adigu way carareen oo way fakadeen guriga ayay ka tageen waxay ku noolaayeen 2 bilood oo kaamil ah darbi jiif caadi ayay ahaayeen waxay ku noolaayeen meelaha xadiiqada ah xadiiqo weyn ayay heli jireen oo habeenkii seexan jireen maalinkiina waxay sameyn jireen inay restaurantooyinka qaaxiyaha waaweyn inay ta yimaadaan ay kula caweeyaan ii sheeg asxaabta dadka jooga marka aad waxay yaqaaneen luqadda Faransiiska marka waxaa qaaxiyaha waaweyn waxaa imaan jiray dad qurbaha ka soo noqday oo luqadii yaqaana ayaa bay arki jireen markaasay talabistaan bay waxay iska dhigi jireen dad sidoo kale ciyaalkan oo kale luqad dibadaha looga soo celiyay oo waqti ay holiday u joogaan oo dad nolol fiican ku nool ayay iska dhigi jireen. adigu asxaabtaas ay meesha ku arkaan ayaa markaas cuntada ka bixin jiray Faransiiska ku sheekaysan jireen meesha adigu dad iska qurba kasoo wada noqday ayay iskala ahaayeen. waad ogtihiin qofku markuu darbi jiif noqdo oo uu seexanayo
beer seexanayo meel garden ah oo loogu talagalay in maaragta lagu nasnasto uu seexanayo hoy u tahay asaga dharkiisa oo wasaqoobayin nadiif ma noqonayo waa saa dareemisiin adugu waxaa dhacday in maaragta ii sheeg ay gabdhahan mid habeen markay seexanayaan mid ayaa maaragta mid kale ilaalinaysa mid baa seexanaysa mid baa soo jeedaysa mid baa seexanaysa mid baa soo jeedaysa noloshaas ayay ku noolaayeen maalinkiina waxay u qaraabtigi jireen maqaaxiyaha waaweyn oo maaragta dadka maaragta waaweyn ay yimaadaano oo maaragta waxay iska dhigi jireen dad maasha Allah markaas cuntada iyo wax walba iska barta iska cuni jireen adugu waxaa dhacday sidee bay dhar ku helayaan gabdhahan sidee bay dhar ku qof meeshaas jiifa wuu wasqoobaya oo hadhow markay maqaaxiyaha yimaadaan waaba la yeesayaa cidna maaragta ma soo dhaweynayso waxay sameyn jireen intay bilinada koraan meesha ugu sareyso dharka maaragta dadka yaalaan ayay soo xadi jireen dharka waxay bilaabeen inay dharka soo xadxadaan oo saas ku labistaan ayay bilaabeen adugu muddo yar kadib waxaa dhacday habeenada kamid ah 6 wiil oo meesha restaurantiga gabdhahan ku arkay ileen gabdhuhu moogtaay waa hilib waxa waa qof kasta ayaa damacinaya oo maaragta ii sheeg qofkii qalbiga ka jira oo dhan xumaan ayuu la damcayaa waxaa dhacday 6 wiil oo restaurantiga ay ku barteen in maaragta ii sheeg ay maaragta ay habeen ka dharjiyeen cunto oo maaragta ay kadibna sharaabka ay ugu dareen in yar oo maaragta drugs ah waxaa dhacday gabdhihii inay maaragta ay iska dhaceen oo meelkay tageen beertii ay seexan jireen ayagoo maaragta khaldan oo miirkood doorsan ay tageen oo way ka qarsan jireen wiilashaan ilaa marka hore maskaxdooda joogtay meeshay degan yihiin iyo inay beer jiftaan iyo waa ka qarsan jireen adugu waxaa dhacday maalinkaas in xoogaa wax loogu daray sharaabka kadibna dee beertii bay gabdhihii aadeen ileen meeshii ay seexan jireen waaye markay meesha tageen waxaa dhacday labadii gabdhoodba in maaragta la farxumeeyay oo midba iyadoo meel jiifta gooni ah ay subaxii indhaha kala qaaday kadibna ay amaal aragtay in maaragta iyada lagu xadgudbay oo maaragta la qabsaday la xumeeyay la farxumeeyay kadibna iyadoo iska ooyeysa oo wadada iska dhex socota iyadii walaasheed oo iska murugaysan oo aad u niyad jabsan labadoodiba aad u niyad jabsan inay arkeen qof hooyadood u eg marka waxaa dhacday maamadu markay gabdhaheedii ay maaragta 2 bilood sii maqan yihiin in la wargeliyay oo loo sheegay oo lagu yiri gabdhahaagii 2 bilood kama warhayno mana nala joogaan marka maamadii way soo baxday ilaa markii magaalada ay aad u raadin jirtay gabdhaheeda nasiib darro maysa la kulmin muddo ay raadinaysay gabdhaheeda waxaa dhacday habeen maalinkaas gabadheedo murugaysan oo iska socota wadada inay arkeen qof hooyadood u eg way yaabeen waxay ku dhaheen hooyo ayay dhaheen meeshii ayay maamada gabdhaheeda ku ooyday oo tiraahday inteeba idin raadinayay muddo ayaa idin raadinayay adugu waxay dhaheen haddaad hooyana rabtaan adii aababa nagamiina tagteen oo micnihii saas noomiina gasheen oo nolosheena maaragta dhibkaana ma soo gaareen adugu maamadii waxay geysay guriga walaasheed waxaa dhacday in maaragta ay amaal dhaawac weyn soo gaaray oo ay nimankii u geysteen oo qof xanuunsan oo maaragta tabcaan inay ahayd waxaa dhacday in maaragta maamadu ay tiri aniga baasaboorro iyo document ay leedihiin ma haayo aabihiin ayaa haaya wax aan sameeyo ma aqaan markaas waxay wadataa maamadu wiilkii ku xigay amaal ee Fariid bay wadataa wax aan sameeyo ma sheegi karo ayay tiri adugu waxaa dhacday in maaragta gabar walaasheed iyo gabadheeda inay fikrad u soo jeediyaan maamadan oo ay dhahaan waxaad sumaysaa baasaboorka maadaama ay isku eg yihiin Fariid iyo amaal baasaboorka maaragta ii sheeg Fariid baasaboorkiisa gabadhan kuwad kama tagi kartid amaal sababtoo ah amaal way jiran tahay xanuun baa haya aad bay u xanuunsanaysaa dhakhtar ayay u baahan tahay gabadhan maba ka tagi kartid xakiime iyo Fariid ka tag amaal
tinta ka jar oo sidii maaragtaa wiilashii ugu labis oo maaragtaa dharka u xir frid dharkiisa u xir sidaas ku wad adugu sidii ayay samaysay sidii ayay maaragtaa timaha uga jartay Amaal oo wiil looga dhigay oo loo waday adugu askartii kuwa ilaalinay baasaboorka fatishayay oo fiirinayay way ku mashquuleen kadibna waxay tiraahday adugu maamadu anaga odayna nalama socdo waa daalanahay safar ayaan nahay please noo dedejiye arrinteena adugu way mashquulisay sidii ayay uga gudbeen baaritaankii sidii ayayna ku tagtay Faransa markay Faransa u tagtay maamadu wiilkii gabadhii xaafad kale geysay odaygii iyo eriyadiisa meesha geyn adugu waxaa dhacday meeshii inay joogtay oo sidii ay gabadhan u soo halowday Amaal oo maaragtaa ii sheeg oo ay u soo baratay dhaqan xumadii ahayd inay maaragtaa waxad xaddo inay bilowday sheekadii oo ay maaragtaa markooyinka waaweyn ee maaragtaa ganacsiga dharka iyo lagu gado inay bilowday inay dharka ka soo xadotay habeenkii gasho oo maaragtaa markii la xiro inay maaragtaa tijabiso ay gasho muxuu ahaa inay wax soo xadxadda ayay bilowday adugu dee Faransa waa meel wadan horumar kaamirooyin wax walba ku xiran yihiin waa la soo qabtay gabadh yarta ahayd waa la xiray waxay u malayn jirtay xabsiga waxay ka aaminsanayd dee wayba tahayba meel maaragtaa aad u xun dadka lagu dilo rafaad silac ah adugu xabsiga ayay gashay waxaa dhacday gabadhi xabsiga markay gashay ee irida ka gashay ee aragtay inay maaragtaa gabadh iskaba qosalba ka soo haro maaragtaa because xabsiga waxay ku dhex heshay maaragtaa in wax la baro in xirfad la baro meel nadiif in la seexiyo adugu waxyaalo aysan maaragtaa nolosheeda ihtimaam iyo dhiir iyo maaragtaa wanaag aysan arag oo aysan soo arag ayayba ku aragtay xabsiga ayadu wuxuu u noqdayba janno adugu waxaa dhacday inay maaragtaa naagtii xabsiga korka haysatay inay u yeertay ee ku tiri Amaal kaalay maxaa kaa khaldan dadku markay stationka soo galaan way ooyaan way murugoodaan ayaga dhan ma faraxsana qofku mudday ku qaadataa inuu la qabsado xataa adiguna waaba qoslaysaa waa kaal arag waxaaba tahayba jawi degan baa ku jirtaa maxaa kuu kalifaya adugu waxay tiri waxba ani sidaa noloshaan baan waxaan u arkaaba nolol ka fiican noloshii banaanka aan ku noolaa adugu waxaa dhacday inay ugu yeertay naagtii meesha haysatay stationka korka haysatay ee maamulaha ahayd inay ugu yeertay dictora nafsiya yacni dhakhtar oo qaab psychology ah micnihii cilmi nafsiga barato qaab psychology ah ula hadasha gabadhan u daweysa in loogu yeeray aduu way wareysatay dhakhtaradii waxay ku tiri Amaal maxaa dhacay maxaa kuu kalifay arrintan maxaa la qoslaysaa maxaa la faraxsan tahay ma waxaad ku fakiraysaa bay tiri intixaar ama yacni isdil inaa isdishid miyaa ku fakaraysaa maya ayay tiri kuma fakiraayo inaa isdilo maaragtaa laakiin nolosha aan kusoo noolaa markii loo fiirsho baa aniga iyo xabsiga ayaa wuxuu ii yahay janno oo waxbarasho aan helay aniga aabahay waxba ima soo barin waxba ma soo baran ayay tiri marka aabaheed ayadu waxba ma soo barin oo maba ogoleenba gabdhaha inay wax bartaan xataa waxay tiri meeshaan wax lay baraayo oo maaragtaa meel fiican la seexinaayo oo cunto lay siinaayo janno ayayba ii tahay dhahday adugu waxaa dhacday in maaragtaa ay aad maaragtaa dhakhtaradii ula yaabtay oo ku tiri ma jecesha inaa ii sheekaysid qisadaada waxay tiri inay u sheegto way damacday ilaa qofku markuu dhib qabo wuu jecel yahay inuu maaragtaa qof la wadaago way damacday inay u sheegto laakiin waxay soo xasuusatay hooyadeed oo ku tiri qisadeena cidna ha u sheegin waayo haddaa sheegtid ani waa la xirayaa aabaha waa la xirayaa dhib weyn ayaana soo gaaraya faamilkeena adiga hadday noloshaada maaragtaa aad burburtay anaga at least walaalaha dartood ayaan u noolahay aniga ha nagu sameynin arrintaas adugu way qarisay waxay tiraahday kulamo wadaagi karo qisadeeda dhakhtaradii ayay ku tiri kulamo wadaagi karo qisadeeda say dhakhtaradii waxay tiri way ixtiraamtay go'aankeeda waxay ku tiri haddaba haddii aad qisadaada ani ila wadaagi karin please waxaan kugu dhiirigelinayaa oo kugu waaninayaa inaad buug iyo qalinkaan qaadatid qisadaada qortid adiga
adugu sidii ayay waxay bilowday inay qisadeeda qorto ii sheeg muxuu ahaa waxaad ani ila wadaagi karin buuggan iyo qalinkan ku qor ayay tiri waxaa dhacday inay sidaas qisadeeda ku qori jirtay gabadhan Amaal ahayd oo maaragtaa ii sheeg ay maaragtaa micnihii buug xasuus qor ah inay samaysatay buuggeedana maaragtaa ay maaragtaa aakhirkii loo iibgeeyey caalamka dhan waliba wadankii ay u dhalatay maaragtaa buuggeeda loo iibgeeyey waxaa dhacday gabadhii inay maaragtaa xilliga xabsiga loogu talagalay ay ka soo baxday iyadoo buug qortay iyadoo wax soo baratay iyadoo maasha Allah waxaa dhacday inay isla markiiba ay isguursadeen wiil ayna u dhashay gabar la yiraahdo Inaas gabadheeda ugu horeysay haddana ay maaragtaa uur kala yeelatay oo ay dhashay gabadheedii labaad oo la dhaho Yaasmiin waxaa dhacday in maaragtaa ay joojisay xaditaankii iyo noloshii adkeyd iyo wixii inay iska daysay sababtoo ah waxay iyadu u baqaysaa waliba inay maaragtaa gabdhaheeda ay xabsi ka gasho oo gabdhaheeda ciilka iyadu ay soo mudatay ay soo mutaan ayay micnihii gabdhaheeda say nolol u siiso iyo maaragtaa wanaag ayay hooyay noqotay ileen inay maaragtaa gabdhaheeda ay u noqoto qudwa xasana micnihii ku dayasho fiican ayay maaragtaa ay iska dhaaftay arrintii adugu qof maasha Allah ayay noqotay oo degan oo dhaqmaysa oo ilmaheeda haysata waxaa dhacday in maaragtaa buuggeedii loo iibgeeyey wadankii Morocco oo aabaheed arkay qisada buuggeeda kadibna uu aabaheed uu soo wacay oo ku yiraahday Amaaley qisada qaybtii ugu xanuunka badneyd oo ahayd in aniga ku silcin jiray in aniga saan ku yeeli jiray maada qorin sababtu waa maxay waxay tiri ma jeclaysan ayay tiri in aniga aabahay aan faashiriyo ma jeclaysan ayay tiri in maaragtaa aan waxa adu nagu sameeyay aan kugu sameeyo ma jeclaysan ayay tiri maadaama wada sharci aan joogno in maaragtaa adiga dib ku soo gaaro iyo hooyaday iyo walaalahay adugu sidii ayay maaragtaa Amaal qisadeeda ku soo gudbisay buugaas ku gudbisay qisadeeda adugu sidaas ayay waxay sameysay Amaal aabaheed waxay ku tiri haba aniga ma jeclaysan sida ay u sameysay inaan kugu sameeyo adugu aabaheed waxay ku tiri abo maadaama waxay tiri waagi hore waa ku habaari jiray oo waan ku necbaa laakiin hadda waxay tiri maadaama qof weyn aan noqday oo caqalistay waxaan ogaaday duruufta iyo dhibka iyo waxa soo martay laftirkaaga iyo xaaladaada iyo waxa kugu kalifayay oo ah jahliga iyo dhibta aad iyo aqoon la'aanta waxay tiri maadaama bay tiraahday maanta anigoo aad u maaragtaa qashinka cuni jiray oo nolol adag ku soo koray oo daryeel la'aan ku soo koray oo dhib badan soo maray maadaama Ilaahay iga hor keenay dhakhtaradan oo ay caawisay oo aan qoray kitaab buug inaan qoray buuggii ay qortayna dee waxay u bixisay Di'b Muslima qiso gabadheeda ay uga sheekeynaysay oo di'b iyo micnihii ruwaagii iyo wax saas oo kale ahayd ayay kitaabkeeda ugu magac dartay Di'b Muslima ayay ku qortay adoo waxay tiri sidaas ayaan ku saamaxay wax dhib ku waxba kuma haysto waxna mana doonayo inaa maaragtaa aan maalinta adiga buuggayga qisadeyda buugga ku qoran aan kugu xuso adoo qisada Amaal gabar aad dhib badan soo martay dulmi badan dhib badan iyo soo martay xaalado adag ayay ahayd sidaas ayayna maaragtaa qisadeeda ku dhamaatay sidaas ayay nolol fiican u gashay sidaas ayay maaragtaa xaaladii ay ku jirtay xaalad ka fiican u gashay qisadeedana halkaas ayay ku dhamaatay Amaal asxaabay intaan qisadan qisa lamida ku kulmi doono waa walaashiin Asmaa oo idinkaga tagaysa في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.